habeen wanaagsan halkani waa la yaabka TV qodobada warka caawa aan idiin hayno waxaa kamid ah waa maxay sababta dib u dhigtay aaska qaran ee loo sameeyay lahaa injineer Yarisow maxaase ka jira wararka sheegaya in dawladda UK ay qorsheynayso inay la wareegto meedka injineer Yarisow wafdi ka qayb galaya aaska marxuum Yarisow oo Muqdisho soo gaaray qodobadeena kala caawa waxaa kamid noqon doona faahfaahin dheeraad oo ka soo baxay qarax gaari lagu xiray oo galabnimadii maanta ka dhacay Muqdisho ciidanka sida gaarka ah ayaa la wareegay ammaanka garoonka Dhuusamareeb iyo ra'iisul wasaare Kheyre oo amar ku bixiyay in ciidamada garoonka la geeyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay isagoo aan wax natiijo ah ka wadin qorshihii uu joogay Galmudug dibaddana waxaa ka mid noqon doona ku dhawaad 32 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay dalka Afghanistan intii aad daawaday waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door corona hadii aad nagu cusub tahay nala saaxiib oo subscribe saar channelkan hana hilmaamin inaad gambaleelka furato si aad macaamiil noo noqoto habeen wanaagsan soo dhawow qodobadii aad maqashay oo faahfaahsan ayaa markaas si guda galaynaa dib u dhac ayaa ku yimid keenista meedka Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yarisow oo maanta lagu waday in aas qaran lagu sameeyo magaalada caasimadda ee Muqdisho mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa noo xaqiijiyay in dib u dhac ku yimid keenista magaalada Muqdisho meedka marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yarisow gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir meedka gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ayaa la keeni doonaa maalinta biri ah galinka hore sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiinta gobolka Banaadir dad boqolaal ah oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa dib ugu soo laabtay guryahooda waxaa sidoo kalena xusid mudan in inta badan maanta la xiray wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoo la xaqiijinayo ammaanka magaalada Muqdisho qorshuhuna ahaa in la aaso ama aas qaran loo sameeyo gudoomiye hore gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yarisow qaar kamid ah mas'uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa xaqiijiyay in sababta u baaqday keenida meedka injineer Cabdiraxmaan Yarisow ee tahay dawlad dhanka farsamada ah haysata dhanka dawladda Qatar warar kale oo soo baxayna waxay sheegayaan in dawladda UK ay qorsheynaysay in ay gacanta ku dhigto meedka injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yarisow ee uga shakiyeen in dawladda Qatar ay dhimashadiisa lug ay ku lahayd injineer Yarisow ayaa la ogsoon yahay in dhalasho labaad uu ka haysto dalka UK waana sababta keentay in dhimashada injineer Yarisow ay ka shakiyaan dad badan ayaana ka shaki qaba in dawladda Qatar ay ku lahayd dhimashada injineer Yarisow kadib 2 toddobaad ka hor markii ay soo shaabaxday in xiriir uu ka dhaxeeyo dawladda Qatar iyo xarakada Al-Shabaab oo dagaal adag kula jira dawladda Soomaaliya warka habeen ayaa wali daawanaysa wafdi ka qayb galaya aaska marxuum Yarisow oo maanta Muqdisho soo gaaray inkastoo uu baaqday aaskii qaran ee loo sameeyay lahaa marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yarisow madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftagareen ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho si uu uga qayb galo aaska qaran ee loo sameeyo Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yarisow oo ku geeriyooday dalka Qatar kadib markii uu dhaawac uu ka soo gaaray qaraxii dabiiqadii bisha aynu soo dhaafnay ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar madaxweyne Laftagareen ayaa u tacsiyay ehelada iyo qaraabada marxuumka ee degan magaalada Muqdisho isagoona hooygiisa ugu tagay ugaaska beesha uu ka soo jeedo marxuumka ugaas Maxamuud Cali ugaas Cabdulle wuxuuna Allah uga bariyay in jannadii Firdawsi uu ka waraabiyo marxuumka ugaas Maxamuud Cali ugaas Cabdulle ayaana ugu mahad celiyay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftagareen ka soo qayb galka aaska qaran ee gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yarisow waxaa sidoo kale shalay Muqdisho soo gaaray madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle si uu uga qayb galo aaska qaran ee injineer Yarisow waxaa sidoo kale la sugayaa wafdi ka socda dawladda Puntland in ay soo gaaraan magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan aaska qaran ee loo sameeyo gudoomiyihii gobolka Banaadir duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yarisow oo ku geeriyooday dalka Qatar warka habeen ayaa daawanaysa qodobo kale oo muhiim ah way noo soo socdaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa amray in ciidanka danab la geeyo garoonka magaalada Dhuusamareeb si ammaanka halka ay ula wareegaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa qorshaha u tagay magaalada Dhuusamareeb ama deegaanada Galmudug waxaa kamid ah in gacan ku haynta garoonka mar qura ula wareego iyo sidii maamul cusub oo asaga taabacsan halka uga dhisi lahaa ciidanka danab ee xoogga dalka ayaa lagu wareejiyay amniga garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ciidankan lagu wareejiyay ayaa ah ciidanka danab ee ku sugan magaalooyinka Gaalkacyo iyo Cadaado waxaana la sheegay in ciidanka ay maamuli doonaan ammaanka garoonka waxaa kormeer u tagay garoonka ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo ku guuleystay in ciidanka uu halka geeyo qorshihiisana uga fulo qaybo kamid ah deegaanada Galmudug isagoona
ciidanka kula dardaarmay inay adkeeyaan amniga garoonkaas. ciidanka ururka ahlusunna ayaa laga wareejiyey ammaanka garoonka, waxaana la sheegay in lagu daray ciidanka booliska, milatariga iyo nabad sugidda, kuwa oo loo kala qaybiyey ciidamadii ku sugnaa garoonka kana tirsanaa ciidankii ahlusunna oo hadda la sheegay in ay la midoobeen dowladda federaalka Soomaaliya. xasan cali kheyre ayaana maanta dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho, isagoona ku fashilmay qorshihii uu u joogay deegaanada Galmudug ka oo ahaa in isbedel dhanka madaxtinimada Galmudug uu ka sameeyo doorasho halkaana uu ka qabto. guddaan daawade warkii caawa aad ka daawanaysay janalka La Yaabka TV caawa intaa ayuu ku dhan yahay. haddii aad nagu cusub tahayna la saaxiib oo janalkan subscribe saar, hana hilmaamin inaad gambaleelka furato. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.